barasaabka gobolka Sool mudane Yaasiin Maxamed Shide iyo maayarka degmada Laascaanood Cismaan Salabaan Jaamac ayaa ka qayb galay munaasabad ay guddi ku dooranayeen mid ka mid ah kooxaha heerka koobaad kaasi oo lagu magacaabo Star Football Club waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan ururada haweenka naadiyada kubadda cagta ee ka jira magaalada Laascaanood iyo marti sharaf kale oo tiro badan doorashadan oo ahay mid cod qarsoodi ah ayaa waxa ku dhawaaqay xubnihii ugu guuleystay awil hore oo ka mid ah guddida doorashada ee kooxdan Star xilka gudoomiyeedimo ee kooxda Sool Stars waxa ku guuleystay Xuseen Cabdirasaaq Boode xilka xogeynimo waxa ku guuleystay Siciid Xaaji Axmed Maxamed xilka xisaabiyaha kooxda Sool Stars waxa ku guuleystay Cabdimaalik Maxamed sidoo kale maayarka degmada Laascaanood ayaa soo dhaweeyay qaabka ay kooxdan u samaysatay maamulka sidoo uu hambaliyay xubnihii ku guuleystay doorashadaasi waxaan ku ballanqaadayaa inaan ka dhigo inaan ka shaqeeyo horumarkiisa waxqabadkiisa taageeradiisa waxaad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad u qabsateen xafladan cajiibka badan waa idinku hambalyeynayna barasaabka gobolka Sool mudane Yaasiin Maxamed Shide ayaa isna dhankiisa sheegay inay tahay doorasho taariikhi ah oo ku dayasho mudan isagoo uu mahad celiyay Fuaad Maxamuud Haybe oo ka mid ah qurbo joogta deegaanadan waxaan ku faanayaa maanta dhalinyarada Sool degmada Laascaanood mar hadday dad sidan yihiin in ay noqon doonaan dadka ugu wanaagsan dalka iyo qarankan inay noqon doonaan baan idin rajaynaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Silaayo waxa ka warhaysaa wuxuu dhiirigeliyaa dhalinyarada wuxuu geliyaa awood aan gelin ummadda inta kale dhalinyarada geliya waayo dhalinyaradu waa ubixii soo kacaayay waa madaxdii berrito dee qofka weyne waa cid sii socota sidaa daraaddeed madaxweynuhu aad buu dhiirigeliyaa idinkana waxaa markhaati iga tihiin dee madaxweynuhu stadiumkana ku ciyaartaan dee isagaa isla markii horreysay uu dalka qabsaday idin dhisay madaxweynuhu wuxuu la dagaalamaa uu dhalinyarada kala dagaalamaa waxyaalaha saddex waxyaalood kow qabyaaladda laba mukhaadaraadka saddex tahriibta isagoo saddexdaa kala dagaalamaya ayuu dhalinyarada wuxuu geliyaa juhdi aad u badan buu geliyaa waxaan dhiirigelinayaa oo aad ugu mahadnaqayaa Fuaad oo ah nin dhalinyaro ah oo qurbaan badan joogay oo soo noqday oo Laascaanood la yimi ama waddan kale la yimi himilo dheeraada oo aan dhalinyarada kale lahayn aad baan Fuaad ugu mahadnaqayaa waayo sidii fiican buu qaadan jiray meel buu ka shaqaysan jiray waxaa la sheegay shaqadiisii inuu ka doorbiday intaa maanta uu soo saaray ayaa isaga guul iyo magac ah insha Allah waxaynu ugu ducaynaynaa inuu madaxweynaha mustaqbalka dalkana noqdo isku soo wada duubo barasaabka gobolka Sool ayaa shakhsi inta badan ku dadaala horumarinta bulshada iyo sidii gobolku la tartami lahaa gobolada kale ee Soomaaliland waana barasaabkii u hore ee dhiirigelin u sameeya dhalinyarta ku dhaqan magaalada Laascaanood Mukhtaar Cabdi Jaamac Star TV Laascaanood